Maanta oo ah 12-ka Febraayo waa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay ka hortagga askaraynta carruurta. Burburka iyo colaaduhu waxay ragaadiyeen guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed, waxayna si gaar ah u saameeyeen qaar badan oo ka mid ah carruurta, kuwaas oo aanan helin amni, daryeel iyo waxbarasho midna. Waxaa intaas dheer in carruur badan ay askar u yihiin kooxaha hubaysan iyo garabyada colaaduhu ka dhexeeyaan. Carruurta la askareeyo da'doodu waxay ka hooseysaa 14 sano, welina laguma guuleysan in la joojiyo askaraynta carruurta. Arrinka askaraynta carruurta waxay weli si xooggan uga jirtaa waddamada kale ah South Sudan, Democratic Republic of Congo, Thailand, Iraq, India, Libya, Chad, Nigeria, Ivory Coast, Mali, Colombia, Afghanistan, Myanmar, Philippines, Yemen iyo Soomaaliya.